Dalalka Imaaraadka Carabta iyo Morocco ayaa geeyay Itoobiya dhowr diyaaradood oo ka mid ah kuwa dagaalka ee casriga ah si ay qayb uga noqdaan bandhigga lagu xusayo aasaaska ciidanka cirka ee Itoobiya oo shalay bilowday. Bandhigga waxaa lagu arkay diyaarado ka tirsan ciidanka cirka ee Imaaraadka oo ay ku jirto Daawus Al-Majrid 2000 oo ah diyaaradaha dagaalka Faransiiska lagu sameeyo howlgallo badan ka qayb qaadatay iyo Boeing AH-64 oo ah diyaarado qumaati u kaca oo Mareykanka lagu sameeyo kuna qalabaysan nidaamyada sahlan iyo gantaalada hagitaanka leh. Sidoo kale Morocco ayaa geysay bandhiggan diyaarado dagaal oo nooca F-36 Fighting Flock ah, tallaabo ay labada dal ku soo bandhigayeen xiriirka iskaashi wadajir ee ay la leeyihiin Itoobiya. Go'aankan ay Imaaraadka Carabta iyo Morocco diyaaradaha ku geeyeen dhulka Itoobiya waa dharbaaxo istiraatiiji ah oo lagu dhuftay Masar, sabab la xiriirta sirdoonka Masar oo taariikhdooda oo dhan waxa ay daba socdeen horumarka Itoobiya ee dhinaca cirka, maadaama dagaal kasta oo labadan dal ee cadowga isku ah uu noqon doono mid ku tirsan weerarada hawada. Waxa ayna Masar u aragtaa horumar kasta oo ciidanka cirka Itoobiya inay tahay khatar istiraatiiji ah, balse hadda waxa ay arkaysaa Masar in dalal Carbeed oo ay ku wada jiraan ururada Jaamacadda Carabta iyo Islaamka iyo iskaashiga Islaamka oo ku hubeynaya cadowgeeda taariikhiga. Ma aha in tan loo qaato wax la yaab leh sabab la xiriirta isbeddelka ka dhacaya dunida. Wuxuu meesha ka saarayaa xulufadii hore, waxaana daaqadaha laga soo tuurayaa warqad kasta oo lagu qoray aragtiyadii soo jireenka ahaa ee ururada iyo isbahaysiyada, waxaana dhismaya xulufo cusub oo qaarkood jihooyin aan laga filayn ka soo jeesanayaan.